Asalaamu calaykum walaalahayga qaaliga ee kusoo dhawaada channelkayga with another video. Haddii ay igu cusubtahay walaal qaali magacaygu waa Taliso, channelka iga daawanaysana waa Taliso Cabdulaahi. Intana waxa aan ila sheegaraynaa shawarma aad u fudud, aadna u macaan badan iyo milkshake aan ka sameeyay waxyaabo fudud aan ka sameeyay. Rayntii haddii ay igu cusubtahay subscribe iyo saar. Halka waxaan ku haystaa chickenka oo soo nadiifiyay, waxaan ku haystaa xawaajiyaashan ku soo darsanaya huruud, paprika, oregano, filfil iyo cusbo. Intaas ayaan ku soo darsaday iyo basbaas gaduud shiidan oo wax yar ah. Waxaan ku darsanayaa hadda hal qaando oo cooking cream ah. Intaa kadib waxaan sameynayaa waan isku walaaqayaa, si fiican ayaan isku dhex gelinayaa. Waxaan ku soo darsanayaa hal qaando kabsar caleen iyo toon sinjibiil isku shiidan ah. Kadib marka la isku walaaqayo waan iska dhigayaa. Dan waxaan sameynayaa burka ayaan rabaa inaan qaso. Marka waxaan ku soo shubanayaa burka ayaan halkaan ku soo shubanayaa. Waxaan qasayaa burka qiyaasta aan isticmaali lahay 3 bakeeri iyo half ayaan ku soo shubanayaa. Bakeeriga midka weyn ayaan isticmaalayaa. Hadda waxaan ku soo darsanayaa oo halkaan ku haysta hal qaando oo sokor ah. Waxaan ku soo darsanayaa hal qaando oo khamiir ah ama istista u taqaano. Marka waxaan ku soo darsanayaa kala cusbo oo wax yar ah. Intaa kadib waxaan sameynaa ku soo darayaa waa isku walaaqaya ugu horeyntii waxyaabo dhan oo yacni aan si fiican isku dhex gelinayaa. Kadib waxaan ku soo darsanayaa biyo oo qandac ah aadna aan u kululeyn. Waxaan ku soo darsanayaa half bakeeri oo caano ayaan ku soo darayaa. Kadibna si fiican ayaan iskugu soo xashayaa. Intaas si fiican ayaan isku dhex gelinayaa. Miiska dushiisa ayaan si fiican ugu soo xashayaa. Waa muhiim inaad si fiican u xashto burkaaga oo si fiican isku dhex galo. Haddii kale ceesh fiican ma ka dubmaayo. Marka waa kaas walaalahayga qaaliga waan soo xashay kadibna waan iska dhigay ilaa uu iga soo khamiiro. Hadda inta waxaan ku rabaa inaan ku sameeyo sauce. Waxaan ku soo shubayaa halkaan mayonnaise ayaan ku soo shubanayaa 2 qaando ah. Waxaan ku soo darsanayaa filfil oo wax yar filfil madow shiidan oo wax yar ayaan ku soo darsanayaa. Waxa ku darsan kartaa kajab, ani hadda kajab ma ku daraayo ama tomato sauce ayaa ku darsanaysaa. Marka kadibna si fiican ayaan isku walaaqayaa. Kadib waxaan ku soo darsanayaa wax yar oo khal ah ayaan ku darsanayaa. Marka waa kaas kadibna khalkaas ayaan ku soo darsanayaa oo wax yar kadibna si fiican ayaan isku walaaqayaa markale gooni ayaan iska dhigayaa. Masha Allah hadda waa kaas sauce-ka sidaas ayaan uga bixinaa. 30 minutes ayaan ku soo laabtay chickenki haddana waan karinaynaa. Birtaawo ayaan ku soo shubay waxaan ku soo darsanayaa wax yar oo saliid ayaan ku darayaa. Wax kale kuma daraayo cusbadiisa wixiisa dhan xawaajiyaashiisa waan ku daraa waa aragteen muhim. Hadda wax yar oo saliid bis ayaan ku darsanayaa kadibna halkaan ayaan ku karinayaa. Dabka ayaan dhexaad u geynayaa. Chickenka jiirtana uma baahno waqti badan inuu karo. Just waqti yar ayuu ku bislaanayaa. Marka hadda waa kaas oo qoyaan ayuu soo yeeshay. Marka waxaan rabaa qoyaankan inuu dhameysto biyahaas oo soo yeeshay. Marka hadda waa kana markii uu soo dhameystay hadda chickenkeena sidaan ayuu diyaar ku yahay arkaysaan. Masha Allah tabarakallah. Dan gooni ayaan dhiganaynaa chickenka. Haddana waxaan sameynaynaa oo noo soo khamiira ayaan halkaan ku haysanaa. Dan hadda ayaan fidinayaa. Waan soo fidinaynaa gees ayaan u jarayaa. Hadda ayna weelka waxaan mariyay saliid. Ceeshka wax yar oo saliid ah uu leeyahay. Marka waa kaas hadda sidaas ayaan u fidinayaa. Jabkaas ayaan soo goostay kadibna sidaas ayaan u fidinayaa khafiif zaid ka dhigin aadna culays uga dhigin. Waa inaad dhexaad ka dhigtid oo yacni marka aad fidinaysid zaid ha u khafiif uga dhigin. Yoona zaidna kaaga buuraanin. Marka hadda waa kana xabadan ayaan tusayaa sidaas ayaan u soo fidinayaa. Kadibna waxaan sameyn doonaa marka hadda waa kaas walaalahayga qaaliga xabadan hadda sidaan ayaan ku soo fidiyay. Kadibna waxaan soo qaatay birtaawada ayaan dibka soo saaray. Birtaawada ayaan soo saaray. Waan ku toosinayaa. Marka hadda waa kana uu soo fuuraysa arkaysaan. Hadda waa kana ceeshkan sidaas ayuu u fuurayaa marka aad sameynayso. Hadda si fiican aad isku dhex geliso u rifaaqdo. Dan hadda waa kana dhinaca kale ayaan u gedinayaa. Hadda diyaar waaye xabadan waan ka saarayaa. Dan waxaan sameynayaa xabadi kale ayaan soo gelinayaa. Marka waa kaas sidaas ayuu noqonayaa.
waa aragtaan maaha marka hadda kan dhaqsi ayaan gedinayaa ma rabo zaaid inuu usoo fuuro haddaan rabti zaaid inuu usoo fuurana wuu usoo fuurayaa oo dibka ugu kaadisid waa kaasa dhexdiisa dhan wuu kala baxaya maasha allah kan dhaqsi ayaan gediyey marka hadda waa kana kulli sidaas ayaana kusoo dhameynayaa hadda sidaas marka aan kusoo dhameeyo kadib waxayaan tusayaa next step aan sameynaa hadda waxayaan kusoo diyaarsaday waxyaabihii dhan waxaan ku haystaa saladkaas basal ayaan kusoo daray yaanyo ayaan ku daray iyo ansalaato aan soo jarjaray basbaaskaas ayaan ku haystaa halkaas ceeshkina waa kana sidaan ayuu diyaar inoogu yahay bacdaas ayaan dusha saarayaa kadib waxaan soo qaadanayaa sooski aan sameynay oo mayoneeska aan ka sameynay ayaan soo marinayaa sidaasaan ayar aan u marinayaa maasha allah tabaarakallah soo marka waa kaasa sooska ayaan sidaas u soo marinayaa kadibna waxaan sameynaa waxaan soo qaadanayaa ansalaatadii ama salarkii ayaan soo qaadayaa ayaan dusha sidaas uga soo saarayaa maasha allah tabaarakallah ansalaatadana qaybta greenka ah iska jarina aniga waan ku jarjaraa waana idin sheegaa mar walbo soo marka waa kaasahay ansalaatadina caadiga ah waa mid aan isticmaala kadibna jikinka ayaan soo saarayaa soo marka sidaas ayaan jikinka u soo saarayaa kadibna waxaan sameyn doonaa basbaaskaas ayaa isticmaali doonaa adi haddaa ciyaal aa u sameynaysid basbaaska iska daa marka waa kaasa basbaas cagaar basbaas gaduud iyo tuun iyo basal iyo waxaa waaye intaas waa iyo basal iyo liin basbaaskana ka kooban yahay kadib wax yaroo basbaas ayaan kusoo daray meeshaas waxaa ka isticmaali kartaa kajab kadibna wax yaroo soos ayaan dusha mar kale uga shubayaa dan waa kanaa si fiican ayaan iskugu laabayaa marka bacdaas waxay kaa caawinaysaa inaad si fiican ceeshkaaga uu kuugu laabanyo waxyaabihii dhan si ayna kaa daadaadanin marka sidaas ayaan ugu duubayaa si aayar maasha allah tabaarakallah soo marka xabadaan aan tusayaa waxyaa kasta kalena waan soo dhameynayaa marka waa kanaa kulli markii aan soo dhameeyey sidaan ayuu kusoo baxay maasha allah tabaarakallah aadna waa u macaan badan yahay aadna waa u sahalsan yahay uma baahnid inaad shawarma aad banaanka aa kasoo gadato haddii aad sidaas shawarmada aa guriga ugu samaysato waa ka maarmaysaa shawarmada banaanka aadna waa u macaan badan yahay ka faa'iidaysi waa walaalahayga qaaliga haddana dhanka kale waxayaan sameysanaynaa milka sheege shawarmada sidaas ayaan uga baxaynaa sheege ayaan sameysanaynaa milka sheegana maanta waxyaaba aada u sahalsan ayaan ka sameynayaa waxayaan ku haystaa inta strawberry oo freezer oo fridge aan kasoo saaray oo qabow ayaan ku haystaa marka waa kaas waxayaan kusoo shubaa makiinada cabitaanka kadib waxayaan kusoo darsanayaa 2 qaando oo caano booro ayaan ku darsanaa caano booraha wuxuu kaaga dhigaa culeys ayuu ka dhigayaa biyo ma noqonayo waxayaan halkan ku haystaa vanilla ice cream ayaan kusoo darsanayaa marka waa kaas vanilla ice cream kaas ayaan ku darsanayaa kadibna waxayaan kusoo darsanayaa wax yar oo sokor ayaan kusoo darsanayaa oo qiyaastii 2 qaande ayaan ku darsanayaa sokor badan ma ku daraayo because ice creamka asigaa sokor badan qabo waxayaan ku darsanayaa caano ayaan kusoo darayaa caanahaas ayaan kusoo shiidayaa si fiican ayaan iskugu soo shiidaa waxyaabaha dhan waxayaan soo marsanayaa bakeeriyaasha wax yar chocolate ayaan kusoo shushubayaa maasha allah tabaarakallah kadibna waxaan halkaa ku haysanaa milka sheegayni strawberry-ga ahay maasha allah tabaarakallah sidaas quruxda badan ayuu kusoo baxay macaankiisa lagama sheekeyn karo ka faa'iidaysi wacan ayaan leeyahay walaalahayga qaaliga haddana waa kaasa waxayaan soo gagashanaynaa strawberry-yadayni haddii uu fiidiyowga maanta ku cajab galiya like comment iyo share nagu cusubtaana subscribe taha naga hilmaamin intaan fiidiyow kala kulmi doono waxaan ii rajaynayaa farxad iyo caafimaad dhammaantiina wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh